sidee ku ogaan kartaa in xiriirkaagu waari doono sidee ku ogaanaysaa in xiriirkaagu yahay kii aad rabtay ee saxnaa soo wax fiican ma aha haddii aad sii saadaalin karto bal in xiriirka aad ku jirto uu yahay kuu xoog leh farxadna kuu horseedaya maantana waxaan ka hadli doonaa noocyada xiriirada ee waara fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe gambaleelkana taabo si ay kuu soo gaarto warbixin kasta naga soo gelina insha Allah badankeenu waan ka digtoonahay jacaylka waxaan u haysanaa isku danaysi in ay daacadnimadu yar tahay taasi idnagu eedi karto ma jirto waayo tirikoobyada ku saabsan xiriirada dhabtii waa kuwa murugo leh xiriiro ayaan sameynaa inagoo isweydiinayna inay sii jiri doonaan iyo in kale xiriirkaagu wacdar wuu dhigi karaa si ka duwan sida la moodsiiyey jacaylku wuu jiri karaa in ka badan inta aan u malayno cilmi baaris la sameeyay sanadka 2012 ayaa waxaa lagu ogaaday in 40% lamaanayaasha isqabay 10 gu ay sheegeen inay si daran weli isu jecel yihiin cilmi baaristaas 40% ragga 34% dumarka isqabay in ka badan 30 sanadood ayaa tilmaamay inay weli is jecel yihiin xiriir walba waa khatar balse waxaa jira astaamo tilmaam bixinaya in xiriirkaagu yahay ku isxaysta tawfiiq leh waqti badanna jiri doono waa kuwa lixno oo ka mid ah xiriirada wanaagsan ee waqtiga badan dhacaya xiriir uu is-afis ku tiirsan yahay sidee u dhaqantaa adiyo lamaanahaaga aad isqabtaan isfahamdaradu dhib ma laha marka xiriir joogto ah uu jiro muhiimadu waa sida aad ula tacaamusho xiriir xoog leh dhanka ma galo inuu yareeyo isku dhac sababtoo ah mar walba waa uu sii dhacaa Daniel Will wuxuu yiri doorashada lamaane waxay la mid tahay doorashada dhowr mushkilo ma jiro lamaane aan isdagaali doonin kala xanaaqi doonin oo aadan ka caban doonin haddii runta laga hadlo dagaalku wuu wanaagsan yahay cilmi baaris ayaa qabtay in lamaane 3 sano aan isdagaalaynin uu xiriirka guurkoodu yahay mid aan caafimaad qabin xiriir guur oo xasilan caafimaad qaba muranku ma aha astaan xoog balse waa wax caadi ah oo tusaya in xiriirka uu bid qabo labaanayaasha fariidada ah waxay xoog saaraan xalinta dhibaatooyinka qofka kale ma weeraro sidoo kale mar haddii ay mushkiladda xaliyaan way iscafiyaan wixii hore u dhacna way islaabaan abirka dhabta ah xeego xiriirka waa sida dhaqsaha leh aad dib ula midowdo odaygaaga ama xaaskaaga kadib marka uu khilaaf dhaco lamaanayaasha uu xiriirkoodu xoog leeyahay isqabasho kadib xiriirka waara waa sidaad ka dhigto ugu dambeyn xiriirkaaga daacad u ahow damaca badan waa laga roon yahay waxaad haysato aad iimaansato ayaaroon dilaaga ugu weyn ee xiriirada waa isjimeynta iyo isku dhereeridda dadka kugu hareeraysan mar walba lamaanaha kale ayaa inoogu muuqda inay naga shidan yihiin oo ay naga farxad badan yihiin iyo naga baraaro badan yihiin lamaane faraxsan uma hanqaltaagaan waxa banaanka yaala waxay ku qanacsan yihiin waxooda waxay haystaan oo ka hor muuqda kaliya jacaylkooda dadaal iyo waqti geli xiriirkaaga waxaad arki doontaa inaad gaarto meeshii aad rabto caajiska iyo kala xiiso dhacu waxay caqabad weyn ku yihiin xiriirada da'da muddo kadib guurku waa wax sahlan in labada qof ay galaan xaalad hubaal la'aan ah iyo madmadow taasi oo wax walba noloshooda ay soo noqnoqdaan marka la fiiriyo waqti uu ku baxayo shaqada iyo shaqooyinka dheeraadka ah ay ujeedadu tahay in dakhli dheeraad lagu xiro waxay u muuqataa inay adag tahay sida aad mataankaaga ama taantaada ugu xirmaato oo aad waqti ugu hesho cilmi baaris ayaa tilmaamaysa in lamaanaha si daran isu jecel yihiin kuwa si wada jir ah uga raaxaysta qabashada hawlo cusub iyo ama ku dhac iyo xiiso leh hawlaha cusub mar waliba waxay wataan xiiso taasi oo maskaxda dareensiin karta soo jiidashada lamaanahaaga dibna uu horin kartaa dhimbilihii hore ee jacaylka tijaabinta wax cusub waa hab wanaagsan oo aad xiriirka dib ugu haween iyo saameyn karto xiriiro ku dhisan kalsoonidu waa saadka ugu muhiimsan ee tilmaamaya guusha xiriirada dhaadheer haddii aysan jirin kalsooni u dhaxaysa labada qof xiriirku ma sii hoogaysan karo lamaanahaagu ma ku kalsoon tahay ma yahay qof aad isku halayn karto adigu sidee isaga ama iyada u tahay lillaahi ma tahay waxa aad soo gadato ma ka qarisaa ma jiraa qof aad si qarsoodi ah internetka online-ka ugu wada socotaan oo lamaanahaagu uusan ka warhaynin ma ka qarsataa dareenkaaga dhabta ah dadka uu xiriirkoodu xoog leeyahay sir ma kala qarsadaan xiriiro ku dhisan mustaqbal mid ah xiriirada dhaadheer ee caafimaadka qaba waxaa lagu yaqaanaa in mar walba labada qof wax badan wadaagaan oo xiriirkooduna wanaagsan yahay waxa haboon ka hor inta aan labada qof ay xiriir ka bilaabin inay iska hubiyaan himilooyinkooda iyo qiyaamkooda ay isla eg yihiin
cilmi baaris lagu sameeyey lamaane qiyaas ahaan isqabay 43 sano ayaa tilmaamaysa haddii labada qof ay leeyihiin aragti nololeed oo mid ah wadaagaan qiyam iyo dana ay u baahan tahay in xiriirkaasi uu noqdo mid lagu liibaanayo cilmi baaris kale oo la sameeyey 2009 ayaa waxay daaha ka rogtay in lamaanaha noloshooda ku faraxsan ay yihiin kuwa leh shakhsiyad ama dabeecad isu eg dhammaan lamaanayaashu waxay arabka ku adkeeyeen halwa dadka lidka isku ah ama aan isdabeecad keenaynin waxay iska soo jiitaan ama iska helaan oo keliya marka filimaanta la joogo balse ma dhisaan guur leh caddaymuhu waxay soo jeedinayaan in dadka dabeecadda kala duwan isxiiseeyaan keliya marka uu xiriirku gaaban yahay xiriirada dhaadheer islahaansho iyo dabeecad ekaansho weyn waxay timaadaa in la sii wada joogo xiriirkuna ahaado mid salweyn ku taagan maxay dad badani uga baqaan inay qof jeclaadaan dadku maxay uga baqaan inay balanta xajiyaan sababtu waa cabsi daran oo laga qabo nuglaansho la'aanta xiriirka ku dhisan nuglaansho dad badan ayaa raba xiriir balse waxay ka baqayaan in si fudud u hadlaan kadibna uu qalbigoodu dhaawacmo daraasad ayaa tilmaamaysa in dadku la diido darteed ay nuglaanshaha uga baqaan waxaa jirta cabsi ah in haddii qofka ogaado sida aynaan u dhammaystirnayn aqli badan u lahayn ama xoog u lahayn sidaan u muuqano hadhowna nala jeclaan doonin nasiib daro ma dhisi karno xiriir caafimaad qaba nuglaan la'aan nuglaanshuhu waa sirta xiriir xoog leh waayo aragnimooyinka nolosha ugu farxadda badan waxaa ka mid ah inaad og inuu jiro qof sidaada tahay kugu jecel adna aad ku jeceshahay sidiisa iyo nuglaanshihiisaba cabsida nuglaanshaha laga qabo waa dabeecad iskharibaad cabsida aad ka qabto nuglaanshaha waxay kaa hor istaagi doontaa inaad si niyad leh qof kale xiriir ula samayso nuglaantu waxaa badanaa loo arki karaa astaan taagdaro balse dhab ah waa mid xoog iyo karti ah waxay u baahan tahay xoog badan dabci iyo isku kalsoonaan si uu noqdo qof nugul nuglaantu waxay leedahay soo jiidasho dadka daacadda ah waxay ka helaan oo soo jiitaan dadka lillaahida ah ee nugul xiriirka waara waa sidaad ka dhigto ugu dambayn xiriirkaaga daacad u ahow damaca badan waa laga roon yahay waxaad haysato aad iimaansato ayaa roon dilaaga ugu weyn ee xiriirada waa isjimaynta iyo isku dhereeridda dadka kugu hareeraysan mar walba lamaanaha kale ayaa inoogu muuqda inay naga shidan yihiin oo ay naga farxad badan yihiin iyo naga baraaro badan yihiin lamaane faraxsan uma hanqaltaagaan waxa bannaanka yaala waxay ku qanacsan yihiin waxooda waxay haystaan oo ka hor muuqda keliya jacaylkooda dadaal iyo wakhti geli xiriirkaaga waxaad arki doontaa inaad gaarto meeshii aad rabtay